ka tirsan SSC Khaatumo ninkii boqor buur madow ah dhulka lagu jiiday wax loo reebtay malaha caay garac wax walba waa dhulka lala jaray arrintaas waa falqeyn doonaa waxaan kaloo falqeyn doonaa Faisal Cadi Bootaan oo xaaladiisii adkaanaysa maadaama Somaliland ay isku dayday inay SSC ka wareegsato Puntland saaxiibtimo ay la sameeyay marka odagii soo bixitaankiisa waa adkaanaysa leeyahay sababtoo wada loo marayo ma jiro maxaabiis dawladda ay keentana waa laga weecday kuwa kala Puntland la dhaafsaday marka SSC waxa way warkiina ma jiro waa arrintan waa falqeyn doonaa xaaladii ugu dambeeyay ciidamada SSC Khaatumo oo dhaqay aad weyn ka wado deegaanada markaasi dhowr madare iyo dib qarax iyo aaga markaasi loo yaqaano Boqorkeyn ayaan soo qaadan doonaa waxaan kaloo soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay dhanka iyo xiisada ka taagan koonfurta Soomaaliya ayadana soo qaadan doonaa isqabqabsiga siyaasadeed meesha uu marayo waxaan kaloo soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay Puntland oo markaasi la sheegay inay horumar weyn ka sameysay buurihii Calmisgaad ee dagaalka ku jirtay haddana waxay u gudbayaan qaybta saddexaad ee dagaalka buuraha calaamado loo yaqaan arrintan oo falqeyn doona barnaamij Shargareey meel fog gaarsiin waxaan ku hormaraynaa horta haweeneyda arkayseen waa SSC waxaan maqli jiray SSC hadda meey ku qaataan waxa ma xiirinayaan horta ninkan boqor buur madow asay naftigiisa nin dab yar shiday maaha waa ninka ka horgara jaamaca Garaad Cali yiri waa wicil meel baa laga soo qaaday yiri maamadii wixii waxa u eega aydan tiraahdo ee tiri ninkan maxsuubna waa wicil marka xaaladdu meel xun ay gaartay isbahdiltii ugu xumeed ayaa la isku bahdilay horta baraha bulshada karbaashka ugu weyn ayaa ninka boqor buur madow ku dhacay buur madow hadoo daawado maamadan waxay aqrinaysaa hadoo daawado waxaan u maleynayaa inuu markaasi mar dambe aan la sii arki doonin mid kale safarkiisii waxa la leeyahay Puntland wax qiimo weyn lama yeelin musalaadiintu lama kulmin siciidina xataa lama kulmin cid oo la kulmay meesha tagay uu ka hadlay maxaabiistii xoolo kuwa kale oo raacay oo ku laabtay argagixisadiisa marka shalan wuxuu dhahay raabtaasha inaan u tago ayaan rabaa taasoo marka aad weyn ku noqotay oo leeyahay nooma imaan kartid la socod mada askale agteedana ma soo istaagi kartid mana dhici kartid inaad timaado mid kale Puntland waxay noqotay maxaa la dhahaa waxay midaysaba Soomaaliya waxay u midaysay Puntland Soomaaliya niman maamul goboleed aha oo marka hore dhahay qaran baana ay soo dhaweeyeen maamul goboleed soo dhaweey noqday marka arrintaasna fashil weyn dhalisay reer Soomaaliland ay qayb ku galeen in Puntland heshiis la galaan xagga saaxiibtinimo ka sameystaan waxay noqotay in maamul oo la heshiiyo wax wareer ma laha waa arrin wanaagsan dhibaatana kuma jirto laakiin shalay Puntland maxay dhahaysay Soomaaliland waa argagixiso dadka maxalliga argagixiso dhan waxa lagu daweeyaa Hargeysa waa nolol sheegay waxa dhahay daniya dhahay waxa Cabdulle Gaasa dhahay rag fara badan oo siyaasiyiin dhahay waxay yiraahdeen ninka maxalliga meeshaas waa meesha argagixisada xarunta wasiirka warfaafinta naftigiisa dhahay oo aad dhageysateen oo dhahay war nimankii la Soomaaliland waa argagixiso caadi ayaga saaxiibla ayaga amiiru ah ayagana ka soo marka ka bilaawada kuna dhamaatay xataa wasiiradu argagixiso yira maantana waa la isku shubanaya bal siyaasadda fiiri horta meesha jirto waxa la isugu shubanaa SSC madaxeed SSC Khaatumo si loo dhabar jabiyo dawladdu maxay u hoos tagtay maxaa loo aqoonsaday arrintaas ay markaas maraysaa xaaladdu meel xun ay gaartay laakiin wax micno ah oo sameyn karta malahan Soomaaliland in ictiraaf ka laabatay meesha kaga cad diyaargarow weyn oo 18 May ugu jiraan waan arkay oo hadda dhowr si badan sii socdaan maxamed bikeen waxa uu soo laabtay waxa kamid ah leeyahay inuu ka hayso 18 May waxyaabaha fanka uu soo laabtay kamid tahay marka la yaab ay noqonaysaa qaran baa laga guuriyaa waxa laga guuriyaa qolo ayuu dhahaa maalintii marka arki doona meesha loo guuriyaa hadda waxay noqonaysaa qaran baa laga guuriyo qola loo guuriyaa hadana noqonay baashi dawdaba u soo akhri sheekadii oo bilaawday arki doona waxa ka soo kordho deegaanada markaasi dib qarax iyo dhowr madare iyo aaga loo yaqaano Boqorkeyn dhaqiiciduna aad weyn ay SSC Khaatumo ay ka wadaan kadib markii ay dareemeen in ciidamo fara badan halkaas la keenay ayaguna diyaargarow weyn ku jiraan ay ka hortagayaan xiisada halkaas ka dhalato saarad military iyo hub iyo ciidan ayaana la gaarsiiyay marka xaalku ma sahlano culaysyada meesha ka jiro isha ayaan ku hayn doonaa iyo og oo xaaladeeda ciidamada SSC Khaatumo ay dul saareen u dhow yihiin iyo kuwa Soomaaliland magaalada og dhaqaaq ka wado ayadana waa soo gudbi doonaa 18 May difaacanayna iyo maxaa la yiraahdaa waa ka hortagayna waxyaabo socdo marka waa la iska gaadaya iskagaadkaas wax ka soo baxo halkan ay ku daawan doontaan dhan kaleeto hadaan aadno Puntland buurihii Calmisgaad waa lagu kala baxay oo ma hadda kadib Calmisgaad oo isku soo dhamaatay waxa la leeyahay calaamadow ayaa loo gudbay phase 3 calaamadow waa loo gudbay dagaal weyn ayaana la qaadi doonaa ciidamada Puntland heegan buu xal galiyay ragga saraakiisha ee hadda la soo daayay Soomaaliland waxa la sheegay in ciidanka dib ugu beeli doonaan ay gali doonaan dagaalka sida aarsada iyo ninka loo yaqaano Cabdulle Madalab oo saraakiil ahaa si toos ah ay u gali doonaan la sheegay dagaalka calaamadow lagu qaadi doono aydan wax ka soo kordho arki doonaa hadaan koonfurta Soomaaliya siyaasadda isdiidan wali way taagan tahay waxaan la isku haystaa Cabdiraxmaan Cabdi Qayl afka furta la arkay warbaahinta la hadlayo Cabdi Xasan Sheekh Maxamuud xil ma sii hayn doono waqtigiisu waa isku dhamaaday
madaxweynaha uu fashilmay waxyaaba fara badan baraha bulshada markaas ka sheegay la arkay marka siyaasadda weli waa la isku haystaa ninka ay shaqada madowna waa tii lagu dhagnaa asagana waxaa Algeria iska aado iska tagaba marka xaaladda jahwareer halkaas ka jiro ciidan Muqdisho oo siyaasadda guud ayaa markaas qasan shirkina waa dib u dhacay oo maanta taariikh labo ay waxa way 3 bil kadib ayaa la ogaan doonaa hadii la qabanayo hadii marka la dib u dhacayo waxay ku soo kor arki doonaa ninka Cabdiqaadir Fadhi asagana wuxuu tagi doonaa in madaxweynaha dowlad goboleedka SC Khartoum wuxuu tagi doonaa meesha la yiraahdo Djibouti oo Ismaaciil Umar Gala martiqaad u fidiyay sida la sheegayo maalinta Berrito oo Sabti ah ayaa laga yaabaa inuu markaas Cabdiqaadir Fadhi gaaro magaalada markaas Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti aydan waxay ku soo kor arki doonaa martiqaadkaasi waa loo sameeyay dagaalada ka socda deegaanada Ceeldheer iyo duleedkeedana wali waa socdaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka horumar weyn ay ka gaareen waxaana la sheegay 30 in ka badan oo shabaab ah oo webiga ka gudbayay in la qabtay oo markaas lagu qabtay Shabeellaha Dhexe ayagoo webiga dhinaca kale u goynayay oo markaas socday ciidamada dowladda ay ku deegaanka gacanta ku dhigeen ayagoo indhaha ka xirna fanaanadooda indhaha looga xirna waa la arkay marka ayadana xaalad weyn halkaas ka jirto isbedel weyn ayaa la sheegay inuu sameyn doono wasiirka cusub ee gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi howlgaladii ugu cuslaa ayaana soo socdo wixii ka soo kordhay ayadana howlgaladaasi diyaar garowgaasi waa soo qaadan doonaa dhan kale waxaa jirto isbedelka lagu sameynayo hay'adaha NISA iyo waliba militariga Soomaaliya ayaa markaas muuqday inkastoo taliyaha guud ee militariga Soomaaliya la taabanayn haddana isku shaandhayn kale oo hoose ayaa jirto sida warka nagu soo gaaray marka ayagana xilka sida loo magacaabo arki doonaa Sambalolshe oo asagana xilkiisa weynayo wasiirna isku bedeli doono ayaa la sheegaya waxaana booskiisa geli doona Mahasala sida warka nagu soo gaarayaan inkastoo wali aan lagu dhawaaqin saacad kasta ayaa lagu dhawaaqi karaa maadaama mar walba ay warbaahinta ay soo tarayso arrintaas lagu dhawaaqi doono duqa gobolka Banaadir asagana ama gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Nuur Amiir asagana uu tagi doonaa sida la sheegay waxa lagu bedeli doonaa nin kale shakhsi kale lagu bedeli doonaa haddana dowladdu waxay xulanaysaa ninka ku bedeli lahayd adan wax ka soo kordhay arki doona barnaamijka Gargamel Garcia inta barnaamijkan lagu kulmi doono waxa leenahay fi amaan illah